madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta ka qayb galaya shirka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka kulanka oo sidoo kale ka qayb galayaan madaxweynayaasha Puntland Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa looga hadlayaa marxaladda dalku marayo gaar ahaan arrimaha doorashada kulanka ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamada looga hadlayo khilaafka ka taagan qabsoomidda doorashada dalka iyo sidii xal looga gaari lahaa kulankan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in isfaham laga gaaro khilaafka doorashada dalka waxa uu shirku yahay mid beesha caalamka iyo madaxda dowlad goboleedyada ay ku xaqiijinayaan jawi degan in lagu bilaabo shirka arrimaha doorashada ee u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka sidoo kale waxa lagu wadaa in maanta ay kulmaan madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyadoo kulankoodu u galay maalintii saddexaad